aan ku bilaabo marka hore dawladda Soomaaliya ayaa bishan dhaxdeeda bilaabi rabta soo saaritaanka shidaalka dhex eega xeebaha Soomaaliya iyadoo shirkado badan shatiye la siiyay waxa haatan la cadeeyay natiijada baaristii dhuleed ee laga sameeyay xeebaha koonfur Soomaaliya iyadoo ay soo baxayaan tafaasiil dheeraad ah oo lagu sheegay Africa Oil Week taasoo soo jiidatay indhaha caalamka dawladda ayaa diyaarsatay ciidamadii badda Soomaaliya ee loogu talagalay in ay ilaaliyaan ceelasha shidaalka ay Soomaaliya qodanayso Turkiga ayaa diyaar ka soo dhigay 7500 oo ciidanka badda ah kuwaasoo tababarkii ugu dambeeyay haysta halka dawladda Norway iyaduna ay sheegtay in ay diyaar ka dhigtay maraakiibta ay Soomaaliya u sameeynayay kuwaasoo ahaa nuuca dagaalka oo ay Soomaaliya yeelanayso kadib 30 sano waxa xusid mudan in dawladda Netherlands ay hore heshiis ula gashay xukuumadii hore ee Soomaaliya ee mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxda u ahaa balse waxa heshiiskaasi ka baxay dawladda haatan jirta iyadoo ku sababeynaysa in musuq badani uu heshiiskaasi ku dhex jiray waxa iminka gabagaba ku soo dhamaaday sameynta maraakiibta iyo waliba Turkiga oo ciidankii badda Soomaaliya u soo xiray tababar soconayay 3 sano waxaana dhawaan bishan dhaxdeeda Soomaaliya ay ku dhawaaqi doontaa guulihii abad ugu ballaarnaa oo ay dawlad Soomaaliyeed gaarto waa kooway Soomaaliya oo laga cafinaya qaamihii caalamka oo ku lahaa cunaqabateyntii hubka oo laga qaadayo sababtuna waa isku xidhnaayeen labadaasi shuruudood geesta kalena Soomaaliya oo ciidankii badda cirka iyo waliba qalabkoodii hirgelin doonta ugu dambeeyna Soomaaliya oo shidaalkeeda soo saaranaysa dawladda ayaa bilowday hawlgalladii ay Jubbaland argagixisada iyo waliba ciidamada shisheeye ee ku sugan ay ku bixinayso inkastoo Kenya ay ogolaatay si culaad la'aanihi inay Kismaayo uga baxdo balse caqabada iminka ku horgudban dawladda ayaa ah argagixisada taasna Haram Cad iyo Gorgor ayaa ballan ku qaaday in saacada ay ku sifeen doonaan amaba ku ciribtirayaan kooxaha nabadiidka waxaana meesha ka maqneen ciidanka Danam oo Mareykanku tababaray inay deegaano badan iyo argagixisada ay ka qabsadeen sida bishan March ay u bilaabatay halka militariga Soomaaliya ayagana la oran karo inay iyaguna yihiin difaac shub ah oo dawladiidka argagixisada ay u diiday inay dhaqdhaqaaqyo sameeyaan dhanka kale tana Jawaar Maxamed oo ah nin Ethiopian ah Oromi ah oo hadda ka mid ah siyaasiyiinta ugu xoogan xisbiyada mucaaradka Ethiopia ayaa waxa uu ka faalooday uu dhaliilay hadalkii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ee ku saabsanaa dagaalkii 77 waxa sidoo kale arintaasi aad uga xumaaday oo wax ka yiri ee madaxweynaha gobolka Soomaalida mudane Mustafa Cagjar isbuucii tagay xasuuqii aanoola ka dhacay ee Mililig uu ku xasuuqay shacabka Oromiya taariikhdiisa ayaan waxbarashada dalka ka saarayna ay yiraahdeen Oroma ayna ka xanaajiyeen shalayna taariikhdii Karamada inta ay Xuseen ay shacabkii Soomaalida ka xanaajiyeen Karamada si loo ekeysiyo meel dawladii dirgiga kaliya ee kaga adkaatay dawladii Siyaad Bare Ethiopiana guul loo qiro in loo ekeysiyo waa qalad aad u ballaaran taariikhdu markasta waxa ay u baahan tahay in la xuso labada waji waxa ay ka fiiriyeen kaliya ishii dirgiga iyagoo hilmaamay taariikhdii shacabka deegaankaasi shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka bariga Oromiyaba dagaalkii waagaasi dhacay guul kuma xasuusto laakiin wuxuu ku xasuustaa xasuuqyadii soo gaaray shacabka iyo waliba barakacoodii ugu ballaarnaa ee dawladii dirgiga waagii dagaal ku dhacay markii laga adkaaday xanaaqii guuldarrada shacabkii ay hubkii waaweynaa la dhaceen iyagoon u aaba yeelin Soomaali iyo Oromaba markii ay gooleysteenna sidoo kale shacabka ayay baabiyeen iyagoon caruur waayeel dumar magaalo iyo baadiye iyo wixii la mid ahba midna u aaba yeelin baadiye iskaba dhaafay war shacabkii deganaa magaalooyinka Harar iyo Diridhaba ayaa la tirtiray taariikhda dalkani waa mid aad u wajiyo badan markastana haddaan taariikh ayaan xusi iraahdo waxa aad xusi aragtidii waagaasi kuwii xukun ka hayay ee ma xusaysid taariikhda ummadani dalkani wada leeyihiin hadda dawladuna waa mid ummadani ee dalkan dhammaantood wada matasha marka taariikhda inta la isku aruuriyo inta taariikhda mid kasta ugu yaraan dib u arkeenin in la dhiso ayaa haboon dhanka kaleetana marka taariikh xusaysaan waa in aad iskaga ilaalisaan in aad hal dhan kaliya ka eegtaan sababtoo ah qoomiyadaha mid markuu arin guul u arko mid kale ayaa u arkaya ceebeen isaga la ceebeenayo marka maanta in hogaamiye Oromihii oo taariikhda intuu hal dhan kaliya ka eego walaaladeen Soomaalida ka xanaajiyo waa qalad ballaaran iyadoo la rabay in la dhisay Itoobiya cusub oo qoomiyad kasta ay ku faanto oo positive ah maxaa keenaya in la soo qofo taariikh hore oo xanuun badan oo boog ah loona kicinaya xasuus xanuun badan shacabka Soomaaliyeed maadaama markii ugu horeysay hogaan Oromihii dalka xukumo waxa ay bilaabeen inay neefsadaan oo ay siraadaan xuquuq baanu helaynaa laakiin nasiib darro waxa
muuqataa in boogtoodii cusbo lagu shubayo waana mid xanuun badan runtii arrimaha nuucan iyo haddaan laga fiirsanin darisnimadeenna iyo xiriirkeennaba waa mid mugdi gelinaysa runtii shacabka soomaalida innagu inoo daris keliya ma ahane waa inoo xataa walaal runtii halganka shacabka oromiya walaalka keliya oo ay lahaayeen waa soomaalida waagii etoobiyadii xumayd bilowday in ay shacabka oromiya tirtirto hooskii aan harsanaynay soomaali ayay ahaayeen runtii halgankii waqoguuto iyo weliba galaasadhibo waxa ay dabada la galeen soomaaliya sidaas ayayna halkani inugu soo gaarsiiyeen waagii dowladda dargiga gobollada bariga oromiya sida hararga iyo baali jabhadaha ayaa taageertaan intay yidhaahdeen ayay xasuuq ku bilaabeen shacabka oromada ah ee beeralayda ahaa ee gobolladan dumarkii iyo maatadii xasuuqa ka soo haray waxaan ula baxsannay soomaaliya waagaasi runtii intii ka soo hartay xasuuqyadaasi waxaa inoo badbaadiyey shacabka soomaaliyeed runtii shacabka oromada iyo halgankoodaba dirgigii barakiciyey ee xasuuqay iyadoosan ahayn waxay ahayd inay xusaan abaalkii shacabka soomaaliyeed ee maatida inoo qaaday inoo badbaadiyey halgamayaasheennina garabka iyo gaashaanka u noqday taariikhdeennu waa in ay ku salaysnaataa runtan bannaanka taalla waxaa sidaasi yidhi jawaar maxamed oo hore aan idinkugu sheegay inuu ka mid yahay hogaamiyaasha ugu culculus oromada dhanka kaleetana ciidamada ilaalada xeebaha turkiga ayaa gariiga ku eedeeyey inay qaxootiga ay hab dhaqan xumo ah ay ula dhaqmaan si naxariis darro ah iyagoo quusinaya saxiimadaha yaryar ay wataan matooradana ka burburinaya amaba isku dayaya inay dardaraan gariigu wuxuu sii wadaa in uu ku tunto xuquuqda insaanka iyo xeerka caalamiga ah markii laga eego sida ay ula dhaqmayaan qaxootiga ee ka gudbaya badda egon c ayaa lagu yidhi war ka soo baxay turkiga guud ahaan 3425 qof ayay badda egon ka badbaadiyeen ilaalada xeebaha turkigu ee sanadii 2019 iyagoo sanadkan 2020 durba badbaadiyey in ka badan 1700 ruux turkiga oo saaran bulgaariya iyo griiga ayaa ah dalka ay soo maraan qaxootiga ugu badan ee u gudbaya qaaradda yurub waxaa la arkayay muuqaalka doonyaha turkiga oo ceelinaya dooni dagaal oo ay griigu leeyihiin oo doonaysa inay qaxootiga qasab ku geliso biyaha turkiga dhan kaletana gacanka twitterka wasiirka gaashaandhigga israa'iil ee naftali bennett ayaa la jabsaday iyadoo la soo geliyey fariimo ay ka mid yihiin in xornimo la siiyo falastiin iyo astaanta calanka turkiga oo ingiriis ah fariinta oo muddo gaaban saarneed koontada bennett ee twitterka maanta ayay dadka oo yaabani markiiba ay ku boobeen screenshot ka hor inta aan la tirtirin waxaa sidoo kale la soo saaray wadaniga iyo weliba abwaanka reer turki ee mehmed akif oo ah ninka alifay astaanta calanka turkiga qoraalka heesta calanka iyo weliba sawirka calanka turkiga weli israa'iil kama aysan hadlin cidda ka dambaysa weerarkan danabeed yuhuudda ayaa muddo aad u dheer waxa ay haysteen dhulka reer falastiin iyadoo ay tartiibba u cunayaan intii yareed ay u hartay sida bariga qudus daanta galbeed iyo marinka gaza tan iyo 2005 halkaasoo ay ka geysato meelka dhacyo xuquuqda insaanka iyo weliba dembiyo dagaal dhangalaytana hogaanka xisbiga sogolotidiidka ah ee SD Jami Akson ayaa turkiga laga soo masaafuriyey kadib markii ay booliiska su'aalo weydiiyeen sida ay dhigayso warbaahinta Sweden Akson ayaa la soo sawiray isagoo warqado ka qaybinaya xadka turkiga Greega kuwaas oo ku soo qoray Sweden waa buuxdaaye ha isku aadina taasoo noqotay aragti aysan la dhicin turkigu wakaaladda Anadolu iyo warqaadka Zosu ayaa warinaya in Jami Akson halkaasi shalay laga soo masaafuriyey marka ay saacadu ahayd 15 xilliga turkiga amaba 13 aaminta Sweden ayadoo la saaray dayuurad u socotay Copenhagen kadib markii ay ka tagtay dayuurad oo la socday su'aalaha booliska oo dheeraaday dartood sida uu dhigay Akson oo ku raacay Dansinaya sawirada ayaa muujinaya hogaamiyaha SD oo ay gelbinayaan booliska turkigu markii jidka la sii waday ayaa la sheegay in ay saxaafadu sawirro ka qaadeen taasoo Jami Akson uga jawaabay inuu isna sawirro ka qaadayo taasoo ay mar kale ka xumaadeen booliska ninka xisbiga SD warfaafinta ugu qaybsan ee Henrik Kotha ayaa dawladda turkiga ku tilmaamay mid foodo ah oo aan ogoleen xuriyadda hadalka sida uu yiri qonsuliyaddeena guud ayaa arintani la socota waxaana war rasmi ah ka sugayna turkiga ayay tiri Sara Bedra oo u hadashay wasaaradda dibadeedka Sweden dhanka kale tana abwaan Ahmed Saleeban Bide oo ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan ayaa qeyladaan ka keenay dhul dad shacab ah ay leeyihiin oo ku yaala duleedka Hargeysa oo la doonayo in laga iibiyo dadka ka soo jeeda Imaaraadka iyo Kuwait abwaanka ayaa sheegay in dad dalaaliin ah ay doonayaan dhul reerkiisu leeyahay iyo waliba dhulul kaleba ay ka iibiyaan Imaaraadka iyo Kuwait waxa uuna digniin u diray dadka ku hoolan qorshahani dhulka la doonayo in looga qaato dadkii lahaa
ugu dambeynna dhaxal sugaha sacuudiga carbeed maxamed bin salmaan ayaa xabsiga u taxaabay 3 xubnood oo ka tirsan qoyska boqortooyada kuwaas oo ku jira xitaa adeerkii la dhashay aabihii boqor salmaan bin cabdilcasiis amiir axmed bin cabdilcasiis New York Times ayaa warinaysa in aan xariistani la raacin wax sabab ah walow ay wararka qaarna ay sheegayaan in lagu eedeeyay qorshe afgambi ah ayadoo rag kale oo la xiray ay kala yihiin amiir maxamed bin naayif iyo walaalkii ninkan oo hadda loo arko hogaamiye beeneedka dalkaasi ayaa dusha ka haya xilalka muhiimka ah sida gaashaandhigga dhaqaalaha iyo wixii la mid ah waxaana loo arkaa inuu durba yahay nin abuuraya khilaaf fara badan ka horba inta aanu xilka dhaxal sugahusan ku wareegin bishii September waxa la qabtay xubno gacan mugeed ah oo ay wadaadda saameyn ku lihi jiraan waxa ay geefanayaasha xuquuqda insaanku ay ku tilmaameen aamusin iyo gacan breen qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka intii aan ka gaarina warka yaga xiga waxaan kaga tagaynaa guuliga gobonimo